بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طه إنسبايرس كسر هذا ما أنتوا حنربا إن أنا دين لو ذاقو يعني تلوين iyo معلومات ku aadan dhanka waxbarashada asaasiga ee Turkiga. barnaamijyadan talooyinka iyo macluumaadka aan la wadaagayo dadka Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Turkiga iyo sidoo kale kuwa raba inay imaadaan hadafka aan ka leeyahay ma ahan inaan dadka Soomaaliyeed ku dhiirigeliyo inay Turkiga imaadaan ama soo aadaan ujeedka kaliya ah aan ka leeyahay waxa waaye in macluumaadkan ay anfacaan qof allaale qofkii wadanka joogo ama ku qasbanaado ama dantiisu arko in wadankan imaado waayo waxaa jiro Soomaali badan oo dhibaatooyin kala duwan la kulmaya macluumaad awgeed. marka waxaan rabaa in waalidiinta Soomaaliyeed macluumaadkan waxbarashada asaasiga ah ku saabsan aan la wadaago arrinta jaamacadaha wixii ku aadan mar horaan duubnay waxaad ka heli kartaan linkiga videoga hoose ku jira ayaad ka daawan kartaan balse maanta waxaan xoog saarayaa macluumaadkayga ama videogan xoog ku saarayaa kali ah dhanka waxbarashada asaasiga ah yani wadanka Turkiga waxbarashadiisa asaasiga ah waxa waaye waa 12 sano waaye dugsi hoose dhexe sare saddexdaas heer waaye waana qasab qof kasta uu ku qasban yahay inuu caruurtiisa iskuul geeyo oo ay wax bartaan caruurta u dhaxayso da'doodu u dhaxayso 6 ilaa 17 sano way ku qasban yihiin inay waxbarasho aadaan. marka haddii aad tahay qof ajnabi ah ama qof qaxooti ah ama qof siyaabo kale ugu nool wadankan Turkiga si caruurtaada ay wax u bartaan kaliya waxa u baahan tahay in sifo sharci ah aad ku joogto wadanka oo aad haysato kaarka yani wadanka lagu joogayo ama iqaamada deganaanshaha ama kaarka qaxootinimo ama yani wixii la mid ah inaad haysato hal sifadaada sharci wadanka inay adaato kaliya laga rabaa. guud ahaan waxbarashada waa intaas waana lacag la'aan wax lacag la iska qaadayo ma lahan waa laga yaabaa inay jirto in yani iskuulaadka qaar ay yani qofka ardayga weydiiyaan inuu uniform la imaado ama buugaagta qaar la isu diro ama mararka qaar xaflado jiraan lacag yar la iska qaado intaasna waxa way waa iska waxyaabo oo loo baahan yahay oo iskuulka yani uu isaga baahan yahay waaye baahooyinkaada guud ma ahan yani wax oo yani qarash ah oo iskuulka ka qaadanay ama dawladdu ka qaadanayso. iskuulaadka waxay isugu jiraan yani laba noocyo oo maxaan ku yiraahdaa dawladdu leedahay oo dawladdu fangareyso oo lacag la'aan ah iyo kuwa sidoo kaleeto yani si gaar ah loo leeyahay oo lacag ah way jiraan intaas nooc way furan yihiin. intaas ka sokow waxaa kale jirto sidoo kale maraakis ama xarumo waxbarasho oo iskuulaad ah oo ayagana loogu talagalay dadka leh yani naafada ah oo daryeelka gaarka u baahan haday tahay naafo jismi ah iyo haday tahay naafo aqli ah labadooda iskuul waa la helayaa yani iyagoo private ah way jiraan iyadoo dawladdu leedahayna way jiraan laakiin kuwa private ah waa lacag oo maxaan ku yiraahdaa hadba qiimahooda iskuulka iyo dadka iska leh ay u go'aamiyaan ayaad ku geysanaysaa. waxaa kale sidoo kale jiro yani qaybta xadaanada ama xanaanada loo yaqaano oo ka bilaabanayso 3 sano ilaa 6 sano da'daas caruurta u dhaxayso waxay helayaan ayagana sidoo kale xarumo ama yani iskuulaad wax lagu baran karo caruurta wax ku baran karaan oo dawladdu leedahay ayagana lacagtooda yani lacag yar ah oo la helayo halka kuwa private-kana ay lacag yihiin. sidoo kale waxaa jiro yani iskuulo oo waliba yani caruurta da'doodu u dhaxayso yani caruurta hadda dhashay eber ilaa 3 sano u dhaxayso la geyn karo oo xanaanada caadiga ah yani xilligaas ayaa hooyada shaqeyso ama aabaha shaqeeyo rabo canugiisa yar in loo xanaaneeyo iskuulaadkaas ayuu geysan karaa sidoo kale guud ahaan waa lacag yani free ma ahan xilligaasi waa lacag. marka halkaas uga gudbo waxaan rabaa inaan dhinaca manhajkan dhowr qodob ka sheego. sidoo kale manhajka wadankan Turkiga gaar ahaan marxaladda hoose waa isku mid dhammaan iskuulaadka gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawladdu leedahay xukuumaddu leedahay manhajtoodu waa isku mid halka dugsiga dhexe ay jiraan iskuulo loo yaqaano imaam khatib iskuulaadkiisa waxay uga duwan yihiin iskuulaadka dugsiyada dhexe ee kale yani waxaa lagu baran karaa yani asaasiyaad diini ah iyo luqadda carabiga iyo luqadda ajnabiga ayaa lagu baran karaa halka dugsiyada sare ay iskuulaad in badan ay kala duwan yihiin waxaa jiro iskuulaad xoog saaro culumta sayniska waxaa jiro iskuulaad xoog saaro culumta arrimaha bulshada waxaa kale iskuulaad arrimaha yani sportiga iyo ciyaaraha ah waxaa jiro iskuulaad dhinaca fanka iyo maxaan ku yiraahdaa suugaanta waxaas ah intaas iskuulaad jiro laakiin iskuulaadka noocyada ay dadku ugu jecel yihiin oo qofkii ka soo baxo ama ardayga ka soo qalan jabiyo loo ictibaarinayo arday guuleystay waa iskuulaadka sayniska ah waxaan aad muhiimad u saaraan ardayga ku fiican xisaabaadka iyo culumta sayniska ku fiican
keli ah ayaa ku guuleysan karo. Marka ardayga uu dhameeyo halkan wadanka Turkiga uu dugsi sare uga soo baxo wuxuu geli karaa markii imtixaanka qabuulka jaamacadaha oo lagu xadidayo hadba jaamacaddu heli karo iyo kuliyadda uu geli karo halkaas lagu xadidayaa. manaahijtana si guud ah sidaas ay u kala yihiin. waxaa kala jiro iskuulaad oo maxaan ku yiraahdaa maraakis waxbarasho oo maraakiska waxbarashada dadka waaweyn loo yaqaano ama xaalka ay timirkas la yiraahdo. iskuulaadkaas ama xarumahaas waxbarasho waxay xoog saaraan koorsooyinka sida luqadda, sida farsamada iyo maxaan ku yiraahdaa wixii la mid ah tuliinka iyo korontada iyo waxyaabahan kala duwan oo maxaan ku yiraahdaa qofka xirfadlaha rabo inuu barto ay leeyihiin. maraakiskan dhammaan gobolada ama degmooyinka Turkiga dhan waa laga helayaa, way ka furan yihiin, kuma xirno, lacag ma ahan, waa lacag la'aan. qof kasta u baahan inuu ka faa'iideysto maraakiskan kaliya wuxuu u baahan yahay inuu kimlig ama kaarka wadanka ku joogitaanka uu haysto, kadibna halkaas tago uu iska diiwaan geliyo. haddii uu rabo inuu luqad barto ama English ama Turkish ama Arabic, course-kaas dhan waa la heli karayaa. kaliya waxay ku xiran tahay contingent-gii ama numberkii loo baahnaa ee course-gan lagu furi lahaa xarunta ma haystaan. haddii ay haystaan waa iska diiwaan gelin kartaa, magaalada aad joogto, gobolka aad joogto ayaad ka heli kartaa, waa weydiin kartaa, waa tegi kartaa xarumahaas. waxaa kaloo jiro xarumaha xirfada kuwa loo yaqaano oo xirfada lagu barto, yani xirfad gaar ah sida kalkaalisinimada, sida maxaan ku yiraahdaa profession gaar ah. xoogaha maraakistan way ka duwan yihiin kuwii kale. kuwan waxay u baahan yihiin 4 sano qofka inuu dhigto, inta uu dhiganayna 5 maalmood baa la aadaa. maalin kamid ah iskuulku wax ku baranaya, 4taas maalmoodna wuxuu baranayaa on job training wax la yiraahdo. shaqadii asiga uu baranayay baa la geynayaa xarumaheedii, lacag yar oo aan badnayn oo maxaan ku yiraahdaa oo ku dhawaad $50 gaaraysa bishii waa la siinayaa. xarumahaasna waxaad ka heli kartaa macluumaadkooda sidoo kale xarumaha waxbarashada dadka waaweyn ee gobolkaada intaad tagto ayaad weydiin kartaa, halkaas macluumaad waafi ah ka heli kartaa. waxaa kaloo jiro sidoo kaleeto waxbarasho furan ama achik uritim wax la yiraahdo. waxbarashada furan waxaa loogu talagalay dadka yani fursad waxbarasho caadi ah aanan soo helin oo rabo inay waxbarashada asaasiga ah qaataan. waxay sameyn karaan tusaale ahaan da'daada, qofka da'diisa hadday dhaafto 18 sano hadday dhaafto, rabana inuu dugsi sare ka qalin jabiyo, wuxuu tagi karaa xarumahaas aan soo sheegay ee xarumaha waxbarashada dadka waaweyn. wuxuu dalban karaa waxaan rabaa inaan iska diiwaan geliyo waxbarashada yani furan ama waxbarashada anigoo gurigeyga jooga aan qaadan karo oo achik uritim baa la yiraahdaa. way ku diiwaan gelinayaan, buugaagtii loo baahnaa kusoo siinayaan, gurigaada tagaysaa, wixii lagu diray baad akhrinaysaa, imtixaanaad jiro imtixaankaasaa galaysaa, sidaas baad ku qalin jabinaysaa. qofka haddii 18 dhaafo iskuul caadi ah ma fariisan karo, ma ogolaanayaan. sidaas darteed wuxuu ka faa'iideysan karaa waxbarashadaas furan ee loo yaqaano achik uritimka loo yaqaano ayuu ka faa'iideysan karaa. ayagoo dugsiyo dhexan way leeyihiin, ayagoo dugsiyo saren way leeyihiin, laakiin dugsi hoose ma lahan. labadaas marxalo dhexe iyo sare ayay leeyihiin. waxaan sidoo kale rabaa inaan halkan idinkula wadaago qofkii wadan kale wax kusoo bartay oo rabo wadankan imaado, haddii uu dugsi dhex soo dhameeyay, marka hore waxaa laga rabaa inuu la yimaado shahaado cadaynaysa heerkiisa waxbarasho, heerka uu joogo. marka aad rabto inaad wadan kasoo tagto, wadanka imaato, waxaa aad u fiican inaad shahaadooyinkaas soo qaadato, hore usoo qaadato, halkan la imaato. way fiirinayaan, way jiraan iskuulaad da'daada iyo shahaadadaas marka isku eegaan ku qaata. sidoo kale waxay ka dalban karaan inaad aado qaybta waxbarashada, xafiiska waxbarashada ee degmada ama gobolka aad joogto si loogu soo sameeyo dheelitir wax la yiraahdo. dheelitirka waxa waaye waxa heerka aad soo gaartay iyo heerka aad rabto inaad ka bilowdo misu dhigmaan, misu maxaa macquul ma yihiin, ay fiiriyaan. wasaaradda waxbarashada ayaa mas'uulka ah inay barbardhig ku sameyso heerkaaga waxbarasho. haddii aadan haysan wax shahaado ah oo aad ka timaaday, tusaale ahaan wadamo kale ka imaatay, Suuriya ka imaatay, Sacuudiga ka imaatay, wadan kale ka imaatay, ma haysato wax shahaado cadeynayo heerkaad waxbarasho, waxan waa soo baratay. waxaa jiro imtixaanaad lagu qiimeynayo heerkaaga waxbarasho lagu qiimeynayo. ardayga imtixaankaas uu galaya, imtixaankaas markuu galo inta nuqaad uu keensado iyaba waxay ku qiimeynayaan fasalka uu fariisin karo. sidaas waxay ku geynayaan heerka waxbarasho ama halka uu ka bilaabi karo, fasalku ka bilaabi lahaa ayay ku geynayaan. qaybtaas markaan ka gudbo, waxaan rabaa inaan usii gudbo qofkii rabo inuu wadankan ka tago oo rabo inuu wadan kale aado isagoo waxbarashadii dhameyn, wuxuu sameyn karaa maamulka madrasada ama iskuulka intuu tago wuxuu dalban karaa shahaado cadaynaysa heerka waxbarasho ee uu soo gaaray cadaynaysa. shahaadadaas waxay kugu saacidaysaa haddii wadan saddexaad ama kale wadamadaas galbeedka aad aado, shahaadadaas aad tagaysaa, canugaagii carruurtaadii halkii ay joogeen ayay kasii wadan karayaan, shahaadadaas ay ku siinayaan. marka aad ay muhiim u tahay macluumaadkaas guud oo halkan idinkula wadaagay. tala ahaan waxaan rabaa waalidiin Soomaaliyeed halkan jooga inaan dhowr tala siiyo carruurtoodii.
talada koowaad waxaa ka mid ah caruurtaadi fadlan u sameey macallin guriga wax u dhigo oo kasoo saacida waxyaabaha ay bartaan maadooyinka ay dhiganayaan usoo akrin karo usoo celin karo kuna gasbi karo in maxaan ku yidhaahdaa layliyada loo soo diro imtixaanaadka exercise loo soo diro ka saacido aaday muhiim u tahay macallinkaas keli ah imtixaankii wixii loo diro kuma saacidaya sidoo kale tarbiyadoodii iyo inay waalidkooda ku xirnaadaan iyo asaasiyaadkooda diiniga ah ayay ku baran karaan haddii aadan macallin guriga u keeni karin waalid adiga isku day inaad caruurtaadi guriga kasoo dhisto oo aad kasoo diyaariso talada labaad oo waalidiinta Soomaaliyeed aan rabo inaan halkan kala wadaago waxay tahay fadlan caruurtaada ka diiwaangeli iskuulka ugu dhow hala raadinin iskuul arday Soomaaliyeed ay dhiganayaan oo dad Soomaaliyeed ay joogaan kaliya hala raadinin balse gurigaada iskuulka ugu dhow ay maxaan ku yiraahdaa ay ku fududahay in iskuulka aad caruurtaada kasoo qaado ayagana haday rabaan ay luku aadi karaan kaas ayaa ku fiican hadii ay duruufta ku saamaxayso oo uu gurigaaga ku yaalo meel uu iskuul dhow yahay iskuulkaas ka diiwaangeli talada saddexaad ee ugu dambayso waxay tahay waalid waxa aad u fiican in iskuulka ay caruurtaada dhiganayaan aad ku xirnaato aad yani usbuuciiba labadii usbuuc hal mar soo ziyaarato soo aragto iyo macallimiinta caruurtaada la kulanto aad weydiiso caruurtaada sida yihiin arrintaas oo macluumaad badan oo hataa adiga caruurtaada aadan ka ogeyn aad heli karto waxaa laga yaabaa in canugaadi uu canug aqli badan oo waxyaabo badan fursad badan heli karo uu yahay yani adigana aadan macallinkiisa aqoon canugiina aadan ka ogaan karin markaad macallinka la kulanto aad weydiiso caruurtayda say yihiin waxbarashadooda ka warrama aad dhahdo way kuu sheegayaan waalidiinta canugaada wuu fiican yahay sidaas way ku leeyahay ama sidoo kale canugaadi wuu liitaa wuxuu u baahan yahay in guriga laga soo kabo oo lasoo dhiso ayuu u baahan yahay canugaadi waa maadooyinkaas ku fiican yahay maadooyinkaas wuu ku liitaa macluumaad muhiim ku ah oo canugaadi inaad ka ogaato baad ka helaysaa iskuulka macallimiintiisa sidaas darteed yani ku dadaal in caruurtaadii iyo madrasadooda aad ka warhayso aad ahaato qof caruurtiisa la socdo oo ka warhay halkay marayaan aad u mahadsantihiin insha Allah macluumaadkan aan ku saabsan waxbarashada waxaan rajaynayaa inay idin anfici doonaan dadka Soomaaliyeed ee Turkiga waxaan rajaynayaa inay si sahlan ula qabsadaan nolosha Turkiga yani xarumo waxbarasho iyo xarumo ganacsi ayaa jiro oo Soomaali leedahay oo Turkiga ku yaalo oo saacido sida tusaale xarunta Midsan yani iyo la talinta waxbarashada oo ku taal magaalada Ankara aad u tagi kartiin la kulmi kartiin wixii tale tusaale ah weydiin kartiin hadii luqada u baahan tihiin caruurtiin aad ka diiwaan gelin kartiin aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh